wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Jubbaland ayaa xeebaha magaalada Kismaayo ka wada olole nadaafadeed oo loogu talagalay in lagu nadiifiyo xeebaha kaasi oo lagu diyaar garoobayo maalinta deegaanka adduunka oo ku beegan maalinka Berita ay bisha tahay 5 ololaha nadaafadeed ayaa maanta waxa ka qayb ahaa wasaaradda amniga gudaha dawladda Jubbaland gaar ahaan ciidamada daraawiishta Jubbaland oo warkacay taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland General Ismaaciil Saxartiid Kaysane cutubka ka tirsan ciidanka daraawiishta ee maanta nadiifiyay xeebta Calanley ayaa qabtay shaqo baaxad weyn leh oo muuqata taasi oo ay ku nadiifiyeen qaybo ka mid ah xeebta Calanley oo qashin badan yaalay ka hor ololaha ay bilowday wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Jubbaland General Ismaaciil Saxartiid Kaysane oo warbaahinta dawladda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada daraawiishta Jubbaland ay diyaar u yihiin qabashada shaqo walba oo looga baahdo isla markaasna muhiim u ah bulshada wax kasta oo dhibaato oo ku yimaado inuu ka qayb qaato sida maxaayato fatahaada sida maxaayato abaaraha sida maxaayato duufaanta wax kasta oo dhaco oo dhibaato ah inay ayaga ay tunka u ritaan oo ka qayb qaataan waa waajibaadka guud inay ciidanka ma aha oo kaliya dadka inay u fahmeen inay qori wataan oo cadow la dagaalamaan oo kaliya ma aha marka waxa weeye midaan waxay la mid tahay inay ciidanka la dagaalamayaan cudurkii ku soo socday ma aragtay cadowga deegaankeena inay la dagaalamayaan oo qashinka ku abuuray oo dadkooda ka tambatay oo ka xoog batay maadaama xoogga ummadda ay yihiin dugsiga ummadda ay yihiin ma aragtay inay qaybtaas kaalintooda ugu xoog badan inay qaataan waxa weeye waa rag dhalinyaro ah oo ma aragtay amnigana dhinac ka sugaya oo qorigooda haysto ay cadowgii la dagaalamayo kana waa cadow ku wajahan ma aragtay dadkanaga iyo ma aragtay dadka soo korayo iyo dadka jiilka soo korayo dadka deganba magaalada caafimaadkiisa inay ka hortagaan oo ma aragtay qaybtooda libaax ay ka qaataan waa xayaabaha ciidanka shaqadiisa oo annaga shaqadanada ay tahay weeye waxa weeye ciidanka halka ka qayb qaadanayo halka joogo waxa weeye ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland waa runtii waa ciidan ka dagaalkana ku jiro safka hore haddana ka qayb qaadanayo ma aragtay kaalintooda kaga aadan nadaafadda muraalna u hayo arkaysiina ku haysayo shaqadaas markii loo sheegay runtii aad bay saakay ugu farxeen oo ugu bogaadiyeen inay kaalintooda ka qayb qaataan oo waajibaad weyn oo ummadooda ma aragtay nadaafadiisa iyo qurxintiisa iyo bilicda magaalada iyo ka hortagga cudurka marka saas waa annaga waajibkanaga ciidan haddaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed nooc kasta ha noqdee waa waajibaadada u yaalo lambar 1 inuu difaaco cadowga inuu ummadda la qaybsado dhibaatada kasta oo bulshadooda maadaama iyaga ay yihiin dad ka soo dhaxbaxay bulshada waa hooyooyinkanagi waa aabahanagi waa gabadhanagi waa wiilkanagi waa xaasaskanagi waa eedooyinkanagi waa dadkanagi marka ciidanka meel kale kama imaan dadku ka dhax yimid waa xoogga ummadda oo aruursan marka sidaas darteed wax kasta oo dhib ah oo ummadda ku yimaado waa looga faa'iideysanayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dawladda Jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay xoojinta barnaamijyada iska wax u qabso ah ciidamada amniga Jubbaland waxay qayb ka yihiin ilaalinta badqabka dadkooda difaaca qaranka iyo bilic soo celinta intaba hawl kasta oo ciidanka loo igmado lafdhabarta dalka weeye inay fuliyaan waajibaadkoodana diyaar bay u yihiin maantana waad aragtaan ciidankan waa ciidan gaar ah oo loogu talagalay inay dagaalka iyo cadowga ay naafeeyaan haddana waxay ka qayb qaadanayaan bilic soo celinta magaalada iyo maartay inay dalkooda mar walba waxay heegan u yihiin ciidamada Jubbaland inay dalkana gacanna ku difaacaan gacanna ku ilaaliyaan badqabka iyo maartay deegaanka iyo ilaalintiisa insha Allah ta'ala waxaan u rajaynayaa dalka nabad horumar iyo barwaaqo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Jubbaland mudane Ciidiid Saleebaan Xaashi ayaa sheegay inay sii wadi doonaan barnaamijyada ka hortagga xaalufinta iyo dhiraynta ay wadaan sharaf bay noo tahay waxayna xusuusinaysaa maanta dadkii soo joogay hadda wax yar baa ka joogay xilligii dawladdii hore ee Soomaaliya jirtay dalkan iska wax qabsaa lagu dhiso waxay kala ciidanka Soomaaliyeed ka qayb gali jireen waxyaabaha natural disaster-ka la dhaho ee masiibooyinka ah ee dhaca nooc kasta ay tahay haddii duufaan dhaco
haddii roobab iyo daadad dhacaan haddii daacuun iyo cudurrada faafa oo khatartaahi dhacaan haddii shubanku dhaco wax walba ciidanka Soomaaliya baa loo adeegsan jiray oo qayb ka ahaa ciidamadu waxay lahaayeen nooc kasta oo bulshadu leedahay oo technique ah waxaan garanayaa aniga oo aan ogaa goob joog ahaa Malaysia waxa ka dhacday dhul gariir dawladda Soomaaliya waxay u dirtay injineero military Soomaaliyeed ah oo topography ah oo dhismayaashii ka burburay wadankaas lagu caawiyay inay dib u dhisaan maanta waxay nagala shaqeynayaan ciidanku nadaafadii iyo bilic soo celinta xeebaha degmada Kismaayo oo leh xeebaha ugu quruxda badan waxa loogu xigi doono oo aan campaign-kooda soo wadnaa oo rabnaa qof kasta oo Soomaaliya oo reer Jubbaland inuu ka qayb qaato inaan ka hortagno bacaadka waxyaabaha uu keeno isbeddelka cimilada ay ka mid tahay sida waqtiga dekada albaabka laga galo bacaad baa fadhiya qorshihii campaign-keeda waa dijinay waxaana u bilaabi doonaa si dhaqso ah in iskaa wax u qabso si ah oo isku tashiya aynu bulsho ahaan arrintaa u qabsano loogana hortago bacaadka sii fidaya ee magaalada galaya xafadaha ay naga dambeeyay calan qaybo kamida ilaa 300 oo guri wax ka badan buu bacaadku saameeyay oo guryahoodii dadkii ka barakacay oo bacaadku qaatay innagaana bulshada matala laga dawladu ah wax kasta oo aan qaban karno oo karaankeena sida hadda aan isu kaashanayna ee saakaba aan u wada nadiifinay xeebtii degmada Kismaayo calanley baynu u wada qaban karnaa waana lagu guuleysanayaa aad iyo aad baan ciidanka taliyaha iyo ciidankiisa iyo wasaaradda amniga iyo degmada iyo cid kasta oo nagala qayb qaadatay campaign-kan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan sidii aynu dalkeena ugu dhisanay hadda wixii ka horeeyay wax isku tashiga yaan haddana isku tashi ugu dhisanaynaa dalkeena inaga leh wasaaraddu waxay wataa in cagaariso dhulka deegaanka Jubbaland waxay ku hawlan tahay in greenhouse-yo iyo xarumo laga qaato dhirta in la sameeyo qof iyo geed baan rabnaa reer Jubbaland inaynu u beerno oo qof waliba hal geed mas'uuliyadiisa qaado marka qof waliba hal geed mas'uuliyadiisa qaado waxaan rabnaa deegaankani inuu mid cagaaran noqon doono mid ka nabad qaba aafooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada iyo baaluushanka iyo qaaca warshadaha reer galbeedku ku sii daayaan hawadeena oo bulshadeena dhibaato iyo xanuuno iyo ku kordhiya waxyeello badan sidii looga hortagi lahaa baynu ka shaqeynaynaa wixii ilaahay inaga aynu qabsano oo gacan ay niyad sami ula nimaadna ilaahay gacan buu inagu siinayaa waana inoo fududeynayaa